neefka faraska ah asagoo cunuga wata la arkaa soo dhalaa qof aragta mar waxyaabaha caanku ugu yahay asoo dhalaa qof ma aragto faras dhalaa lama arko ma la arko waa weli lama arko maya inuu dhalaa caloosha ku sida waa la arkaa bilaha uu qaaday waa la ogaadaa laakiin asoo dhalaaho inuu ka soo jeedo cid aragtay ma halkani waa deegaanka Waradhuuma leh oo hoostaga magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan deegaankan waxa uu ka mid yahay deegaanada wali uu ku dambeeyaan oo laga heli karo fardaha dabcan Soomaalida hore fardu waxay u ahaayeen wax muhiim ah ama xoolaha kuwa ugu muhiimsan laakiin haatan way si dabar go'ayaan laakiin deegaankan waxa ku nool boqolaal farda ah kuwaas oo dadka deegaankan ay leeyihiin waxay sheegeen inay fardahan gaarayaan ilaa 1000 faras Waradhuuma ay gaar u yihiin sida badnaanta Waradhuuma leh rugtooda ama joogan oo deegaanka daaqooda ku yaala meeshaas marka fardayaawgaas marka fardayaal aad u fiican oo maaragtay wadamada waxyaabihii awal soo jiri jiray goobka hayo lagu shaqaysan jiray ilaa saxaabihii soo jiri jiray ilaa waqtiyo badan soo jiri jiray hadda marka waa la tabcay dib loo tabcay wadanka deegaankan aad ugu badan yahay xilliga marka fardaha ma idinka jacayl oo jacaylkiina u jooga aad aan jecelna waa dhaqana marka waxyaabaha waxa waaye aan ilaa taariikh ahaantood waxyaabaha taariikhda loo kamid yihiin fardo historyga waxyaabaha taariikhda loo kamid yihiin marka saasa loo haystaa oo waxa waaye waxyaabaha aan aad ugu jecelna way geela oo kale waa ka sii jecelna dad badan jira oo farda aqoon oo waayahan dhashay fardaha marka u sharax bal fardaha horta sawirka waa inay horta gob yihiin waa noo sheegtay in kala jarkii hore dhaqankii hore yihiin waa noo sheegtay in waaga hore lagu duuli jiray wax la og yahay waaye oo dadka qaar wax ka daawadaan filimada ay waxaas ku arkaan waxyaabo qaarna cilmiga ku qoran yihiin marka maxay u kala baxaan horta fardaha imisa nooc ay leeyihiin kuwa ugu fiican farasku su'aasha ugu horeysa la isweydiinaa waxa waaye markii ay farasku dhalanayo darmaantu markay ay qaado ay dhalayso imise ku dhashaa 13 bilood ay qaata sida geelo kale sax waxyaabaha oo marka caan ku yahay waxa waaye neefka faraska ah asagoo cunuga wata la arkaa soo dhalaa qof aragta mar waxyaabaha caanku ugu yahay asoo dhalaa qof ma aragto faras dhalaa lama arko ma la arko waa weli lama arko maya inuu dhalaa caloosha ku sida waa la arkaa bilaha uu qaaday waa la ogaadaa laakiin asoo dhalaaho inuu ka soo jeedo cid aragtay ma idinka bis idin gaarta ma soo wax ilaa hadda wala aragtay wala aragtay ilaa xilligan weli aantooda lama sheeg waa gartay habeenkii oo waqtigii oo dhasho la arka isagoo maanta faraska uu cunugu geedo is cunug wadan habeenkii cawadaas oo kale ay keento idoo wato soo dhashay haddana wuxuu caan ku yahay xoolaha u dheer yahay adduunka meel soo